baaqa ugu xoogan ee aan dirayno qof kastoo caqli leh oo jecel in arrintan dambiilayaasheeda laga salgaarane igula ra'yi yahay waa inaan nimankaa nafis la siinin. war soo dhowaada saaxiibayaal, caawa halkan waxaan rabaa in aan xog muhiima idinkaga soo gudbiyo dambiilayaashii sameeyey falka argagaxa lahaa ee Soomaaliya oo dhani ay ka qalqashay ayaa fursad yar raadinayo, way ku daba yartahay. gabar eri la jirto ayay maqarayeen faash la dhaceen galabta. fursad yar bay idiga rabaan, adinkeena idiga rabaan. waxaan la hadlayaa waxa waale fursadaas haddaadan siinaha walaye bille nimankii waa ku daba yartahay. waa inaadan fursadaas siinaha. muuqaalkan aad ha loo sheer gareeyo, qof kasto oo fursadaas nimankaas si karo ha loo sheer gareeyo. waxaan kula wadaagayaa xog muhiim ah iyo xaaladoodu halkay marayso ayaan rabaa inaan kugula wadaago muuqaalkan. qofkan xataa internet helaynin taleefanka inta laga waco ha la isgaarsiiyo oo nimankaas yaan fursadda la siinin. soo dhowaada. marka hore waxaan rabaa inaan kula wadaago ninkan aad arkaysid ee sawirkiisu idoo muuqdo. waxaa la xaqiijiyey inuu ahaa hogaamiyihii watay dableydii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xasuuqday. waa ninkii ciidanka oo nool markii ugu horeysay muuqaalka ka soo duubay isagoo ku sheegayo maleeshiyaad jidka laga soo qabtay inay yihiin. waa ninka ka soo duubay muuqaalka markii la dilay oo la jarjaray kadibna muuqaalada soo duubay meedkooda soo duubay. waa ninka dableyda watay ayuu ahaa. sidaas darteeda laacibka degmada ayuu ku soo gali jiray Facebook. waxa uu ku jiraa ragga ku dhuumaaleysanaya ilaa iyo hadda howdka ku dhuumaaleysanaya ee ciidanka dawladdu ay ku daba joogaan ku jira. ninkan kale isagana waa nin ceelbaraf ku soo galay inuu yahay hogaamiyaha macwiisleyda ceelbaraf. waa nin kale oo isaguna qayb ka ahaa xasuuqa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maleeg. waxaa la helay shabakad dhan oo isku xiran oo meelo badan faraha la gashay oo raggani ay ka tirsanaayeen una qaabilsanayeen howlahan argagixisanimada la qaabilsanayeen. ma rabo wax badan oo xogahan helay ayaa jirto, laakiin ma rabo inaan ka hor dhaco ama aan halkan ka sheego wax badan oo dawladdu ay hadda gacanta ku hayso. balse midda rabaa waxay tahay inaan ka digno. xalay waxa la xaqiijiyay in ay dhaheen oo ay rag ka tirsan dadka deegaanka ila waa la iswada yaqaanaa, deegaanka la isla wada dego. rag ka tirsan deegaanka ayay soo waceen iyagoo baadigoobaya nin xawaadle ah oo dadka meesha degan ka mid ah oo ay siiyaan lacag $10,000 ah si uu u soo dilo nin abgaal ah. weliba waxay leeyihiin nin abgaal ah meeshuu jiifo iyo halkuu joogo ayaan kuu tilmaamaynaa, lacag $10,000 waa ku siinaynaa ee soo dil. ujeedku waa maxay marka? maxay ka faa'iidayaan? waa nafis ay ku nafisayaan iyo fursad ay ku baxsan karaan. maxaa yeelay waxay rabaan in falkan qabiil ahaan looga falceliyo. haddii dil uu dhaco looga jawaabayo falkii ay sameeyeen waa midii ay rabeen ay ka shaqeynayeen. meesha waxa ku baaba'ayo oo meeshii ku raatirmayo dhiiggii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaab qaran loo raadinayo oo dawladdu ay ku daba jirtay. waxaynu isku rogaysaa qabiil dilay isku rogaysaa, mana ahan, way ka dheertahay. qabiilku waa isdili jiray, tanna way ka baxsantahay. sidaas darteeda baaqa ugu xoogan ee aan dirayno qof kastoo caqli leh oo jecel in arrintan dambiilayaasheeda laga salgaarane igula ra'yi yahay waa inaan nimankaa nafis la siinin. dhalinyarada waxa weeye ka xanaaqday arrintaas ee ciidankaasu beel ahaan ay ka soo jeedaan waa inay isxakameeyaan. dhimasho waa u joognay, mar walbaan dhimanaa, meel walbaan ku dhimanaa. khawaarij aan dagaal kula jirnaa oo waxa weeye 500 oo wiil iyo ka badan ayaan dhowr bilood waxa weeye ku luminay. sababtay u lumiyeen waa midan hadda xornimada ugu naaloonayno. sidaas darteeda kuwanina inay dambiilayaashaas la soo qabto ayay furo u noqonayaan dhowr jariimooyin hore deegaanadaas uga geystay. yaan marka nafis la siinin, ha la isxakameeyo. ciidamadaas xoogga dalka Soomaaliyeed ee shuhadada ee sida xaq darrada loo laayayna qarankoo dhan bay ka geeriyoodeen.
qarankii aan ka warsugaynaa ها يا نفس لسينين حقت كلام ربي إن ندي شجع واحد تاي نمنكي مركي لقى جوابي واه أو نمنكي أي صوّع عنا فلك أي أشجعين أي رهدين ور أيضا كسقرنا كنت أنا قلنا قرن كي نكور سجينا واحد شيء سنة قادن مين اللير سوى أو نبعتض أصي بديان أي سمينا يعني دول بورلي كله ما لسنا قلبت جبر أري لجرته أو كم يده حوالها ماشى دقن أي كصابحين كبدي فاش أي مقرر لدعين dhaawac sakaraad ayadoo ah ayaa hadda waxa la keenay tarda hadda dhaawaceedii la soo gaarsiiyay iyadoo dhaawac halis ah saas darteeda waxay raadinayaan ayaa waxay tahay sheekada in waxa weeye qabiil falceliyo yaa la falcelin oo nafiskaas la siinin gabadhaasna ilaahay ha caafiyo